السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta الجigjiga iyo live ayaan tijaabinayaa asxaabta ehelka qaraabada aan muddada kala maqnayn see tihiin caafimaad ka warrama ma la maqlayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu yaa i maqlaya facebook waxaan ku aqaanay ma lay maqlaa ma lay arkaa waxaan tijaabinayaa maanta hadduu ilaahay yidhaahdo barnaamijyo live inaan bilaabaan rajaynayaa marka meeshu waa jigjiga waa ogaadaya alxamdulilaahi rabbilcaalamiin in badan baan anigoo qaracan ah kasoo qeyliyay dibadda maanta jigjigaan idinkala hadlayaa marka hore waan idin wada salaamayaa dhammaantiin waa Roodo Ibraahim Cabdiguray intiina ay garanaysaan waad garanaysaan intiina aan garanaynin barasho wanaagsan muuqaalka iyo maqalkuba waa sidee maqalkii muuqaalkuba ma fiican yihiin maasha allah wax codbaahiyaa ma isticmaalayo waa anigoo halkaas soo fadhiya aad baan idiin salaamayaa runtii in muddo ah baynu ku kala maqnayn hawada oo aan barnaamijyo live soo gelin hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan bilaabi doonaa barnaamijyo wacyigelin ah waagii hore kuwa dagaalan ku jiray dagaalkii aynu ku jirnay dagaal siyaasadeed isu bedelay kaasna waynu ka qayb qaadan doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan jeclaystay maanta inaan idin salaamo anigoo tijaabinaya bal live-ka jigjiga markii la joogo sida uu yahay marka sideedii aragtaan oo sida uu muuqaalku idiin soo gaadhayaa codka isaga laftiisa xal waa loo heli doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo waa okay aad baad u mahadsantii dhammaantiin waa idin salaamayaa mar kale aad baan ugu faraxsanahay ilaahayna waan ku mahadinayaa fursadda qaaliga ah anigoo maanta gudaha ogaadeenaya idinkala hadlaya magaalada jigjiga runtii waa maalin iiga duwan maalmo badan oo barnaamijyo live halkan kasoo gali jiray aan soo gali jiray oo facebook soo gali jiray marka waxaan idiin ballan qaadayaa hadduu ilaahay yidhaahdo inaan soo celin doono barnaamijyo wacyigelin ah hadduu ilaahay raalli ka noqdo sababtay tahay waa wax dareenkayga la nool ummadayda inaan wixii aan mar walba kolley garasho ahaan iyo awood ahaan aan ku tari karo oo bulshada lagu wacyigelin kara inaan ka qayb qaato in muddo ah oo aan hawada facebook ku yaraa duruufaha iska jira waad garan kartaan waxaa ka mid ah dee xagga aaladda ka mid ah internetka oo iska cidhiidhiya mararka qaarkood waana wax iska caadiyahoo dee markaynu qurbaha joogna mararka qaarkood sidaas iska noqotaa aan fursadda ka faa'iidaystan hore usoo galo mar kale waa idin wada salaamayaa dhammaantiin soo dhawaada ilaahay waxaan ka baryaynaa marka ugu horreysa in uu inagu dilo taqwadiisa oo uu ina sugo waayo adduunka wax aynu ka qaadi doono inu kala tegi doono oon camal ahayn ma jiro camalkeena inuu ilaahay mid khayr qaba ka dhigo oo khaatimada khayr inoogu khatimo ayaan ilaahay inooga wada baryayaa waxaan jeclahay inaan dhammaantiin naftayda ka bilaabo naftiinana aan idin xusuusiyo inaynu nahay addoomo tabar yar oo cimrigeenuna gaaban yahay oo inta aynu adduunka ku noolaanayna in yaroo kooban ay tahay intaas oo weliba haddii laguu dheereeyo cimriga aan kugu filaanin ooda marnaba odhanaynin waan cimriyey haddii marka ay tahay meeshani meelaynaan ku sugnaanaynin maxaynu u baahannahay waxaynu u baahannahay mar walba horta inaynu isxusuusino inaynu meeshan ka tegayno oo aynaan isku ilaawin oo aynu nahay dad ka soconaya mar haddaynu isla waafaqsannahay inaynu meeshan ka tegayno ma garanayno qof walba goorta lagaa kaxaynaya ma garanaysid haddii aadan garanayn goorta lagaa kaxaynaya waxaa habboon inaad tahay qof digtoon inta tabartiisa ah waxaad moodaa baryahan dambe inaynu mashquul ku nahay waxaan waxba inaga soo gelaynin waxaan waxba inoo taraynin waxaan inaga aakhiradeen iyo adduunkeena toon waxba u taraynin sidaa daraaddeed runtii waxaan jeclaystay maadaama oon fursad haystoon caafimaad qabo maadaama oon dhulkaygii hooyo in badan ka maqnaa anoo nabada joogo maadaama oo howlo badan oo kolkii horeeto cidhiidhi ahaa ay fudud yihiin maanta waxaan jeclaystay mar walba inaan kelmadda aan awoodo ilaahay isolansiiyo aan bulshada la wadaago waxaan doonayaa maanta inaan iskortaaga hadduu ilaahay yidhaahdo sida aynu wada ognahay waxaynu isticmaalaa inteena badan social mediaha maanta waa la wada isticmaalaa yar iyo weyn waa la isticmaalaa kolkii hore dhalinyarada unbaan moodi jiray inay isticmaalaan dadkii waaweynaabaa isticmaalaya waayo wax kasta youtube baa loo rogayaa youtube-kana islaanta tuulada joogtaiyo odayga geela la jooga wuu gaadhayaa marka dhammaanteen waxaynu noqonay bulsho ku xidhan social mediaha marka maxaa faa'iido ah oynu ka helaynaa maxaa habboon inaynu ka digtoonaano
maxaa habboon inaynu ka dhowrsano waxaa faa'iido ah oo kow aynu ka helaynaa aaladan maanta idinkala hadlayo waxaan arkayaa dubbo 92 ruux oo idaawanaysa waxay gaari doontaa haddii ilaahay idmo muuqaalkan intaa in ka badan saan rajaynayo marka horta fursadan qaaliga ah ee aan maanta isugu gudbin karno wixii khayr ah ee aynu isugu gudbin karno qofkeena xanuunsan ee aynu isugu gudbin karno tacsida ee aynu isugu gudbin karno aroosyadeenna iyo farxadaha dhalashada ee aynu isugu gudbin karno arrimaha diinta wacyigelinta bulshada baahiyaha iyo waxyaabaha aasaasiga ee nolosheena la xiriira oo aynu wax iskula qabsan karno waa wax aad iyo aad u qiimo badan oo qaali ah ummad intaas fara leh oo kala maqan oo ruuxba meel joogo inuu ilaahay siiyo fursad ay ku kala faa'iideystaan runtii waa nicmo weyn hadda ka horna intii aan dagaalka ku soo jirnay ee aan halganka hubaysan ku jirnay ogaadeen iyo halganka ka socday aan ku jirnay dadkii dibadda ka soo halgamayay aan anigu ka midka ahaa in badan waxaan ku celcelin jirnay inaan ka faa'iideysano aaladan ilaahay ina siiyey inaynu ka faa'iideysano markaa oo aynu waxyaabaha wanaagga uga faa'iideysano qof kasta oo caqli la ayaa garanaya waxaan ka bilaabay inaan idin soo horfadhiyo maanta oo dad boqolaal qof ay daawan karaan oo dad aanan taleefon isu wada diri karin oo aanan fursad u wada heli karin aanu halkan iska salaami karin dad badan oo aad u jecelahay baan arkaya ay wada daawanaya dhammaantood ay salaamaya magacyadiina xabad uma sheegi karay soo wada dhawaada marka horta fursadda qaaliga ah ee ilaahay ina siiyey inaynu wanaagga uga faa'iideysano kuna xamdino ayaa waajib inagu ah waxyaabaha habboon inaan ka digtoonaano waxaa ka mid ah kow waxaad arkaysaa dad fara badan oo wax macno ah uu leeyahay iyadoo ayna jirin wax dadka kala fogeynaya oo dhibaato keenaya Facebook ku soo qoraya maxaa ka mid ah waxyaabaha beenta ah waxyaabaha dacaayada ah waxyaabaha aan jirin xataa haddaad doonayso inaad qof u dhammayso oo ama qof aad neceb tahay ama urur aad neceb tahay ama maamul aad neceb tahay haddaad ku wajahan tahay sida adigana kuu qurux badan eed ku guulaysan karta waxa weeye inaad wax xaqiiqada soo baahiso waxa weeyaan inaad soo baahiso waxa ceebaha ah iyadoo dadka muslimka la faray inay ceebaha asturaan oo qofka muslimka qofka kale muslimka ceebtiisa uu asturayo ceebta aan ka hadlaynaa waxa weeye waxyaabaha u baahan in la daweeyo waxyaabaha u baahan xal in loo helo matalan dad Soomaaliyeed baynu nahay dhamaanteen muslim baynu nahay dad diin dhaqan af wax kasta inaga dhaxeeyo intaas oo dhan waajib baa inaga wada saaran qof kasta oo wax garanaya waajib walaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh xidigta naqbeed iyo dhammaan walaalahay salaanta waan idinka qaaday ana waa idin wada salaamaya marka mar hadduu waajib ina saaran yahay wixii waajibku kaa saarnaa inaad ka seexato daw ma aha waxa kula gudboon inaad sidaad u sixi karto ee adiga markaas awoodeeda leedahay inaad u saxdo haddaba siyaabaha wax lagu saxo waxaad moodaa dadka Soomaaliyeed inta badan way ka qaldan yihiin aniga oo si wanaagsan wax ku sixi kara haddaan abaaro wadada ugu xun ee qodxaha badan ee aan aniguna ku wajihi karaya dhib iga hor yimaada wixii aan ujeedada iyo la xijcirada ka lahayn rabay inaan saxan aan ku saxaynin waa inaynu ka guuro jabadaas inaynu ka guuraynu u baahnay maxaynu u baahnay kow marka aan rabo inaan wax saxo waa inaan tilmaamo shayga aan saxayo shayga aan rabo inaan saxo ee xal in loo helo aan doonayo waa inaan tilmaamo waa inaanan intaan qiiq iyo isku kiciyo dambas iyo uura intaan kiciyo waa inaanan dhex qaadinoono dadka ku dhihin waxbaa qaldane waa inaan horta shayga tilmaamo yaan rabaa inaan saxo hebel waxa uu ku qaldan yahay waa inaan tilmaamo anigoo dhowraya sharaftiisa iyo karaamadiisa iyo cirdigiisa anoon midna taabanaynin anoon midna intaa u talaabayn waxa naga dhaxeeya aniga qofka mas'uulka ah hadduu yahay qof urur mas'uulka ah iyo hadduu yahay qof dawlad mas'uulka ah hadduu yahay nin dhaqan mas'uulka oo oday dhaqana qof kasta uu yahay oo danta ummadda loo haysto inuu mas'uuliyadeeda wax ka mid hayo ama uu inta ugu badan hayo shayga aan rabo inaan ka saxo qofkaas walaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaantiin walaalahay soo wada dhawaada aad iyo aad baan idin salaamaya oo sharaf baad agteeda ka leedahay runtii waan ku faraxsanahay inaan maanta anigoo jigjiga jooga aan live qurux badan oo aan hawadiisu xumayn aan soo galay aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay ilaahay baan ku mahadinayaa soo wada dhawaada waxaan doonayaa inaan ka gaarsiiyo waayo khadka iska taga nalka iska tagi kara marka inaan dedejiyaan doonaya hadduu ilaahay idmo marka walaalayaalow waxaa qurux badan kow marka aan rabo inaan wax saxo horta aniga waa in lay garanayo marka hore
marka ugu horeysa aniga wax saxaya meesha Facebook aan isticmaalayo Roodo Ibrahim Cabdi Gure waa in la garanayo inay tahay qofka wax saxaya waa inaana magac dhuumaala wadanin oo aanan magacayga qarin marka ugu horeysa hadday jiraan duruufaynu magacyadeena u qarin jirro waa inaynu ka soo baxno dhufayskii aynu wajigeen iyo magaceena aynu dad baynin ku halgamin waa inaan ka soo baxno waxaan la hadlayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed baan la hadlayaa laakiin si gaar ah waxaan ugu wajahnahay dadka Soomaaliyeed ee ku nool dhulka Ogaadenya ama haddaa doonto adigu aad u taqaanid Somali State ama aad u taqaanid Soomaali Galbeed anigu midna cudur iguma hayo midna intaasoo magac cudur iguma hayo waayo waan aqaanaa waxaan ahay dalkayga magaciisa iyo ujeedadeydana waan hubaa sidaa darteed wax cudur aan iguma hayo dadkaasaan si gaar ah ula hadlayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeedna way anfacaysaa waa la hadlayaa si guudna Soomaali waan ula hadli doonaa hadduu Ilaahay idmo marka haddaan doonayno inaynu wax saxno kow waa inaan Ilaahay ka cabsado anigu markaan wax saxayo wax dhab ah oo la taaban karo oo dhaliilahna aan soo gudbin karo waayo haddaad Ilaahay ka cabsanayso waxaad garanaysaa oon kaa lumaynin wadada aad u socoto ujeedada aad leedahayna way guuleysanaysaa oo nuxurka aad u socoto eed rabtid inaad ummadan u faa'iideyso midho dhal buu noqonayaa haddaad halkaa ka bilowdo adoo Ilaahay ka cabsanaya oon ruuxa aad rabto inaad saxdo ku xadgudbin waa inaad tilmaanto meesha uu ka jilicsan yahay ama aad doonayso in khaladka laga saxo waxaan idhi oo kale waa inaad tahay adigu qof la garanayo macnaheedu ma aha inaan ku leeyahay qof caan oo bulshadu garanaysa inaan ku leeyahay maaha haddaad doonto qof maanta ku cusub social media noqo laakiin waa inaad tahay hebel magac saxa oo kii lagula baxay ah ee lagu yaqaanaya ee dadka inuun waalidkaa iyo asxaabtaada ehelkaaga ku yaqaaneen waa inaad adeegsato oo aadan adeegsanin magac dhuumaal ah sababtay tahay laguma garan karaya haddaad tahay qof dhuumanaya inaad tahay qof wax saxaya iyo inaad tahay qof wax qaldaya horta dadku ma kala cadaanayso sidaa daraadeed waxaan rajaynayaa inaynu horta ka soo baxno dhufayska magaca dhuumaasha ah inaynu ka soo baxno dhufayska xajiimeynta inaynu ka soo baxno dhufayska aan nacfiga inoo lahayn waayo markaan doonaya inaan wax saxo haddaana tilmaamin meesha aan raba inaan saxo boogta haddaana tilmaamin anna waqtiga un baan iska luminaya ummaddiina waxba umaana faa'iideynin haddaba haddaan doonaya inaan ummadda wax u faa'iideeyo waxa aan u faa'iideynaya waa inaan caddeeyo waana inaan idhaahdo maanta xaafadda hebla ee magaalada Jigjiga ka mid ah wadadeeda waxaa lagu gooyay geed qurac ah oo baabuurta socon weyday waa inaan halkaa ka bilaabo baabuurtii ay ka socon weyday dadka ay ka socon waayeen haddaa laakiin anigoo arka geed jirid weyn oo wadadii lagu jaray baabuurtu maraysa anigoo arka oo rabataa inaan saxo haddaan idhaahdo magaalada Jigjiga waxbaa ka khaldan bulshadii maanta way yaaban tahay waxba maana sixin waqti baan lumiyey waxaan soo fadhiistay meel waxaa laga yaabaa inaan isticmaalayo internet lacag ah waxaa laga yaabaa inaan isticmaalayo mid ergise ah waxaa laga yaabaa inaan isticmaalayo time aan iga gu'in waxaan isticmaalayaa maskaxdeydii iyo indhahaygii haddana dadkii waxba umaana faa'iidin marka walaalayaalow waxaan doonaynaa inaynu horey u soconno waxaan doonaynaa inaynu horumar la taaban kara gaadhno madaxdeenna inaynu ixtiraamno oo aynu wixii ka qaldanna ka toosino waajib bay inugu tahay madaxdeenna waxay isugu jirtaa madax ururo siyaasadeed hogaamiye iyo madaxda maamulka inoo haysa madaxda dhaqanka iyaduna meel joogta culimaa jirta intuba waxay ummadda ka mudan yihiin ixtiraam waa kulkii ummadda wax kasta oo ay khaldaan marka ugu horeysa inagu waa inaan ixtiraamno oo isku dayno inagoo ixtiraamayna inaynu sixi karno oo aynaan qajajac iyo qayle iyo waxaan jirin iyo been iyo waxaynu isku dhoodhoobnay aynaan samaynin taasi waa qodob waan ka degay intaasi waxaan u malaynayaa inay waxoogaa iftiimin tahay waan sii wadi doonaa hadduu Ilaahay yidhaahdo barnaamijka maanta tijaabo weeye ciwaan ma samaynin إن شاء الله تعالى عوان بان أصمين دونا برنامجية تحنا بان بلابي دونا هدو إلهي كرالي نقضو ومبرشد كوع يقلين إنو وحين دونا يا إنان تلمامي إيادنا مركا آد ربطو إنaynu xalino waxaad moodaa waayadan dambe waxyaabo iska yar anigu kulli aan wax weyn u sii arag oo aan aad u cuslayn oo laga shanqariyaa jira qabyaalad laga shanqariyaa jirta waaye qabiil iyo qabyaalad waa kala laba qabiil waa isir abtir ah oo dad ay isugu yimaadaan oo ka bilaabanaya Roodo Ibrahim Cabdi Gurey familka aan ka dhashay iyo haybta aan sii galo ilaa iyo aan sii galay duudka nabi aadan qabiilkaas la dhahaa qabyaaladna waxa la dhahaa
inaad qof u jeclaysato isku qabiil baa tihiin isagoo khaldan iyo isagoo khaldanayn labadaba inaad qof u nacdo qofkan isku qabiil ma tihidin isagoo qaldan iyo isagoo qaldanayn labadaba haddaba markaad rabto inaad qof qabiilkaaga aad difaacdo isaga laftirkiisa aad difaacayso maxaa sharaf ah haddaad difaacayso qofka qabiilkaaga wayba kuu bannaanta inaad difaacdo qof qabiilkaaga waayo waa qof muslina qof kastoo muslina inaad difaacdidna waaba waajib diiniya laakiin waa markaad difaacayso waa marka la dulmayo dulmi isaga ku socda marka uu jiro qof kastoo muslima inaad difaacdo waajib bay kugu tahay marka ka kula reerka ah ama walaalka ama inaadeerka ama aad xigsanaysaay dee meel kaleetaba ha uba doonin muslim baa lagu yidhi difaac isagana marka haddii la dulmayo waa difaacaysa waa waajib hadduu saxan yahay maxaad samaynaysaa waxaad caddaynaysaa waxa uu ku saxan yahay marka wax ummaddu wada leedahay qofku hadduu mas-uuliyaddeeda hayo wax ummaddu wada leedahay oo ummadda qofkaas uu mas-uul u wada yahay adiguna aad tahay qof ehelkiisa ah mas-uuliyadda uu ummadda u hayo waad u simantihiin adiga qofkaan ehelkiisa ahayn dhaliisheedana waad u simantihiin inaad toosisaan ilaalinteeda sharaftiisa iyo waxa ummadda u hayana waajib baa idinka wada saaran sida ugu fudud marka aynu isku fahmi karro ee aynu uga saari karro shanqadhaa qabyaaladda ee la sheegayo ee uuna qofna qiranaynin qofna ma qiranayo ma jiro qof intuu isu soo istaaga dhahaya qabyaaladiistaanahay cadaalad darradaan jeclahay waxaan jeclahay inaan dulmi sameeyaan jeclahay qof dhahayaa ma jiro laakiin dhammaanteen dhaliishaas waan sheegaynaa dhaliisha aan sheegayno si aynu uga gudubnoon hore uga dhaqaaqno tallaabooyinkan aynu qaadaynaa insha allahu tacaala waxaan matalan aniga ayaa waxaan dhaliilsanahay madaxda ururka matalan owane la fookale madaxdeedaan dhaliilsanahay ama waxaan dhaliilsanahay madaxda dowladdeena yaan dhaliilsanahay waxaa iga soo horjeeda gabadh ama wiil ama dhalinyaro badan oo iyagu si aada u taageersan waa inaan soo wada fadhiisano aniga markaan qofkan dhaliilsanahay waa inaan soo bandhigo waxaan ku dhaliilsanahay hadda matalan guddoomiyaha jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeeniyo oo kale cabdiraxmaan maxamed sheekh mahdi maaday ayaan dhaliilsanahay ama waxaan dhaliilsanahay madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar waa inaan soo bandhigo waxa aan ku dhaliilsanahay ma caayayo sharaftooda meel ugama dhacayo cirdigooda meel ugama dhacayo nasabkooda meel ugama dhacayo midabkooda ma tilmaamayo dharkay xidhaan ma tilmaamayo gurigay degan yihiin ma tilmaamayo waxbarashadooda ma tilmaamayo xaafadda ay degan yihiin ma tilmaamayo intaasoo dhan la iima diran waxaan rabaa inaan dhaliilo xilka ay ummadda u hayaan waxaan tilmaamayaa waxa dhaliisha ahay leeyihiin kuwa iga soo horjeeda ee iyagu sida xoogga u taageersan ayaan wada fadhiisanaynaa marka waa inaan maalinba meel astaamaysto oon idhaahdo dhaliishaasay leeyihin waa inaan ogolaado marka in laygala doodo waxaa igala doodaya oo iga soo horjeeda kuwa intaan anigu dhaliilsanay in ka badan aaminsan waxaan ay hayaan inuu sax yahay ama waddada ay ummadda ku hagayaan inay sax tahay waan doodaynaa markaan doodno eenu si caafimaad qabto u doodno eenu ilaahay ka cabsanayno eenu xishoonayno aanan shaqsiga ama ninkaa madaxda ah meel kale ka abaaraynina danta ummaddoon aan ka abaarayno waxaa qasab noqonaysa inaan isku fahanno aniga walaalahayga aan doodnay waa qasab weeye waa wax caqli kasta uu ogol yahay qofka walaalkaa markaad si caafimaad qabto u doodaan waxbaad isla qaadanaysaan waxbaad isla qiraysaan aad baan idiin salaamayaa si fiican ma ii aragtaan oo si fiican ma ii maqashaan anigu dhinacayga wax shoocaaca ma arko wax khad ahoo qalqallooca ma arko ammaanku wuu sugan yahay si qurux badan baad wuxu wadaan aad iyo aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin waa idin salaamayaa marka mawduucayga oo iska ballaadhay laakiin nuxurkiisu uu yahay dabaysha socota inaan wax ka ifiyo waxaan doonayaa insha allahu tacaala inaan soo gaabiyo idinma dhihin sii sheergaray idinkaa sii sheergarayn doona haddaad rabtaan anigu inta uu gaadho markaas hor fadhidaaba kolley aan isleeyahay way ku filaanaysaa inay iyaguna sii gudbin doonaan ugu yaraan inay dad kala sheekaysan doonaan waxaan ku celinayaa mar kale tilmaanta ah inaynu rabno laba shay inay wax saxmaan iyo inay wax khaldamaan waa inaan kala caddayno qof kasta oo caqli leh oo qaangaadha waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay su-aal hadduu gumaysiga etoobiya ka raaco miyaad dhaliili maxamed qoraxay su-aashaada qoraalka ma wada arko waxaan u malaynayaa
qof kastoo meesha iga daawanaya hadduu i garanayo mabda'iyan gumaysiga Itoobiya iyo ogaadeeya waxaan ka aaminsanahay inaad i garanaysaan baan u malaynayaa way fiicnaan lahayd intaan haysto waqti fiican su'aalaha aad idinkuna intaad soo qabsataan i weydiisaan waayo qoraalka ma jawaabi karo qoraalku wuu ordayaa mana diyaar u imaanta inaan sideedaba su'aal ka jawaabo qof kasta oo i garanaya mabda'aygi waa kaadigu taqaaneen ogaadeenya inay Itoobiya ka go'daan aaminsanahay waxaan aaminsanahay wadada oo wanalaf ay qaadatay hadafkeedii ujeedadeedii hab nabadgelyo inay ku gaadhaan aaminsanahay inta mar haddaan ka jawaabay su'aalo badan oo iga weydiin lahaydaan arrintaas waxaan u malaynayaa intaasaa ku filan qofkii raba inuu su'aal kale i weydiiyo mar kale aynu ka dhiganaynaa insha allah waayo maanta diyaar uma ihi oo qalab aan ku kala bedelana ma haysto inta yar anun baa hadli waanan ka bixi insha allah su'aalaha qoraalka aan sidaydaba weligay kama jawaabi jirinoo way ordayaan su'aaluhu way orod badan yihiin laakiin waxaan jeclahay insha allahu tacaala inaan heli doono aan gaari doono fursad aad kusoo qabsataan oo su'aasha igu weydiisaan anaan ka jawaab intaan awoodo mawduucaygii baan kusii soconayaa anoo soo koobi doona hadduu ilaahay yidhaahdo maanta runtii waxaan aad ula danqaday waqti hadda muddo dheer oo sanad ahna aan barnaamijyada live-ka aana bilaabin runtii waxyaabaha iyagoo oo yar weynaan karaya ee bulshadeenu kusii socon karayso qof kasta oo wax garanaya qof kasta oo damiir leh qof kasta oo ummadiisa jecel qof kasta oo iimaan ku jira way dhihaysaa dadka dhalinyarada ah ee social media aad u isticmaala haddaan la jahaynin haddaan loo caqli celinin haddaynaan mar walba yar iyo weynba cabsida ilaahay isku baraarujinin waxaa laga yaabaa inuu shaydaan inaga qaalib noqdo wadada khaldan uu inoo kaxeeyo waxa biyo kama dhibcaankii waxa weeye aan ku bilaabay kuna gabagabayn doona insha allahu tacaala qof kasta oo social media isticmaala oo u leh dhaqdhaqaaq oo awoodi karaya inuu social media isticmaalo waa qof garaad qaangaadh leh waayo ilmaha saqiirkii inta badan geemamkii waxyaalahaas iskaga ciyaaraan arrimahan aynu inagu ka hadlayno kuma lagu lahaa qof kasta oo marka qaangaadha waxa weeyaan qof kasta oo camalkiisa la qorayo oo dembi iyo xasanaad loo qorayo haddaba ma jiro qof intuu xumaan bilaabay xumaanta meel ku gaadhay ma jiro qof intuu bulshada xumaan uga soocmay taariikhda meel wanaagsan ka galay haddii uuna ilaahay hanuuninin oo ciribtiisa khaatumadiisa aan khayr loogu khatimin oo qofkaas uu ku dhinto camalka xun iyo waxyaabaha bulshada kala fogeynaya waxay diinteennu inoo sheegtay inuu yahay kuwa ku khasaaray noloshii iyo xikmaddii loo keenay labadaba ilaahay inagama dhigo kuwa ku khasaaray xikmadda loo keenay mar haddaynu haysano fursado fara badan qof walooba xisaabtan qof kasta oo maanta halka iga dhagaysanaya iyo qof kasta oo i gaadhow qof kastoo halka iga daawanaya iyo qof kastoo maqli doona codkayga uu gaari doono xisaabtan adigu isxisaabi waxaad xisaabisaa adigu bulshadan maxaad kusoo kordhin kartaa oo wanaag wax aad kusoo kordhin karto oo wanaagi hadduu jiro haba yaraade soo bandhig wadada ugu saxsan ee ugu macquulsan adigoo maraya adigoo ka fogaanaya wax kasta oo dib inoo dhigi karaya wax kasta oo dib lugteenu ahayn karaya adigoo ka fogaanaya soo bandhig caqligaaga iyo garashadaada waa laguu baahan yahay waa sababta aad u tahay number ka mida bulshada waa sababta dhalashadaada loogu farxay waa sababta laguu barbaariyey waa sababta laguu baray waa sababta loo jecel yahay inaad cimri yeelato sidaa daraaddeed waajibaad baa ku saaran dhammaantiin waa idin salaamayaa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu walaalahay aan jeclahay aada u qiimo badan soo wada dhawaada dhammaantiin in muddo ah Facebook iyo waan ku kala maqnayn social media dhinaca live-ka waxaan rajeynayaa hadduu ilaahay idmo inaan barnaamijyo live ah oo taxanaa aan maanta laga bilaabo wadi doono waayo fursadan internetka aan hadda haysto iyo nabadgelyadan iyo caafimaadkan inaa khasaariyo ma aha waxay nala gudboon hadalka waan soo gabagabeynayaa dhammaanteen marka ugu horeysa horta inaan iswada cafino qof kasta oo la jecla ummadda ka hayso oo dadkiisa iyo dalkiisa u danqanaya wuxuu ku qasban yahay oo waajib diini ah ku ah in uu doorkiisa ka qaato door xalaal ah oo nadiifa inaad ka qaadataa waajib kuga wax kasta oo bulshada kala fogeynaya oo xumaan keenaya oo xanan iyo qodax in xaganaysa noqonayana waa inaan ka dheeraano waxaa jira dhalinyaro fara badan oo aniga soo wada halgamay oo aad u jeclahay oo qiimo badan oo runtii mararka qaarkood aan jeclayn commentskooda inaan aqriyo ama barnaamijyadooda inaan soo qoro oo mararka qaarkood khaladaad sameeya bashar baynu nahay bini aadan baynu nahay dhalinyaradaas qof kasta oo tilmaanta aan sheegaya leh oo aan laakiin ma doonayo qofna inaan magacaabo
mana jirto dad aan inta badan si shaqsiya ula xiriiro oon arrimahaas kala hadlay waayo waxaan doonayaa inaan meesha publica ah wixii ila quman ka idhaahdo qof kastana ay meeshiisa ku gaadho waxaan rajaynayaa dhalinyaradaas xigmad baa jirtay la yiraahdo dooh tacabkiiba waxaa jirtay qiso xigmadaha runtii dhulkeena aynu ka dhaxalay dhaqankeena xoolo dhaqatadeena reer guraageena abwaanadeena xigmado fara badan oo ama sheeko ah ama suugaana oo waxaa jirta aynu mar walba ku geedigelino barnaamijyadeena noocan oo kale ah sheekada dooh tacabkiiba waan xusuustaa hadda ka hor barnaamij live ah soo galay oo xilligan ka duwan ahaa waan kaga sheekayay waan ku celinayaa eegana waxay ahayd xilli jiilaal oo dheer markuu jiilaal dhaco ee abaar ay dhacdo ceelka laga cabaa biyihiisu yaraadaan ama biyuhu fogaadaan inta badan waxaa jirta xoolo xaas la dhigo oo inta badan ariga iyo weylaha iyo maqasha oo yacni ariga yaryar ah intiina reer magaalkan garanaynin ama weylaha yaryar iyo xoolaha waaweyn ee ama neef duqa oo ceelka fogaari karin ama neef xanuunsanaya ama neef itaal daran ama neef dhalayo oo laga yaabo inuuna meeshaa fog u socoyn karin ayaa la xanaaneeyaa awr baa loo dhaamiyaa marka awr hayin ah oo ina baacis iyo ina hebel iyo ina laan iyo ina maytiir iyo de garanaysaan yaa loo dhaamiyaa awrkii ayay waxay u dhaaminaysay 3 bilood jiilaalka ama 2 bilood ama 4 bilood bay u dhaaminaysay xoolihii xaaska ahaa ee maqasha iyo waxaraha iyo weylaha iyo baraarka iyo waxaraha iyo weylaha iyo xoolihii kale bukayba roobkii baa da'ay waxarihii biyo dhaamiski waa laga daayay awrkii waa la foofiyey uu soo daaqaa waa la soo xareeyaa dabcan awrta waa taqaanaan inteena dhaqanka sida fiican u garanaysa awrta waxay ka mid tahay xoolaha la raace ee intii la foofiye laga daba tagay aan soo noqonin bay ka mid tahay marka awrkii bay maqasho duleedka daaqaysa iyay haweeney Soomaaliyeed awrkii way soo dheelantay soo seeta furtay maqashoo duleedka daaqaysa oo sanadka dhan uu waraabinayay buu isagoo barwaaqadiisii iyo nimcadiisii iyo dee iska faytaamay yuu ku tuntay waxarihii buu jajabiyey marka uu sanadka dhan uu dhabarkiisa biyaha ku siinayay marka reerka duleedkiisa markay keentay ee ayna weli xaraynin waxay rabtaa inuu duleedkan u joogo awrkiina ay seetayso oo dee maqashanna inuu ku tumaniyo xoolaha iyo dadkaba inay seetaysay rabtaa marka intay seetaysay oo halkaa tigoogta ka dharbaaxday bay tiri dooh tacabkiiba dooh awrta lagu yiraahdaa waa oraah awrta loo isticmaalo tacabkiiba bay tiri waan idin wada salaamaya walaalahay ilaahay khayr fara badan haydi siiyo dhamaantii salaanta waan idin ka qaaday inaad ila hadlaysaan oo wixii qoraysaa waan arkaa laakiin ma akhrinayo sababtoo tahay ma jeceli inaan qoraalka ku mashquulo ama mawduuca ka leexda ama aan ka hadlaano marka xigmadda dooh tacabkiiba waxaan ku wadaa dhalinyaradii kasoo qayb qaadatay welina ay ka go'antay inay ka qayb qaataan halganka ogaadanya lagu xoreynayo eed moodo in ay ku kala duwan yihiin gumaysidiid waan ku salaamay walaalkay gabay miyaa jira may abadan gabay ma jiro hadal baa jira gabay dhaaxaan soo duubay youtube ku jira kuwa aan youtube ku jirin baa buuxa waan ka nasanayaa gabayga siyaasiyiintuna waxaan dhihi lahaa qaarkood siyaasadda inay ka nastaan baa fiican dad badan oo siyaasiyiin oo safka hore ee maanta aan raaliga ka nahay jirin oo gadaal wax ka riixaya oo Soomaalida oo dhan ah waxaan leenahay bulshada waxyaalo fara badan oo siyaasad ahayn inaad ugu adeegtaan baa fiican anigu gabaygeena ka nastaan jeclahay laakiin ismaba karaye laakiin horta bal maanta oo kale iyo barnaamijyada live iyo kuma jiro insha Allah marka dooh tacabkiiba waan ku noqonayaa walaalahayga aan la hadlayo isgaranayaan dhalinyaradii kasoo qayb qaatay welina ay ka go'an tahay in ay ummadooda dulliga ka kor qaadaan ee kasoo qayb qaatay halgankii adkaa ee ogaadenya loo soo galay ee kasoo qayb qaatay hadduu dibad ahaa hadduu guda ahaaba inay fikirkooda ku kala qaybsanaadaan marxaladan maanta ah waxaan odhan karaa waa meesha aynu ka bilownay oo ah in wixii aad u soo dhimanaysay aadan ka fikirin oo aadan aad u ilaalinin ee aad ku duljiso oo kale noqonaysaa haddaba dooh tacabkiiba ha noqonina social media ka daaya waxyaabaha idinka dhigaya dad shakhsiyadoodii aan ilaalinaynin bulshadiina idin hanweyn eed waqtiga soo geliseenna dhibaato ku ka daayaan idin leeyahay dhalinyarada ka qayb qaadatay halganka ogaadanya lagu xoreynayo welina ka qayb qaadanaysa ee aad u jeclahay ee wada garanayo ma doonayo inaan magacaabo mana dhacayso inaan magacaabo laakiin waynu wada garanaynaa inay jiraan dhalinyaro mararka qaarkood afkaarta isla jiidha
afkaarta in lagu kala duwanaado cudur ma aha anigu dad badan baan ka afkaar duwanahay oonu is aragnaa oon wax isweydiinaa oonu wax isla soo qaadnaa intaan kusoo jiray halganka ogaadanya lagu xoreynayo runtii halgankaas waxyaalo fara badan baan ka bartay idinkuna waad ka barateen waxyaabihii aynu halgankeena ka baranay ee sharafta badnaa ha luminina waxyaabihii aynu kusoo halgamaynay dabeecadihii iyo dhaqankii cabdi baaruud aad baan kuu salaamaya walaalkay maxaa tiri shalay inaad timaado ayay ahayd waad is ogeyn aniga adiga cabdi baaruud waan is ogeyn shalay inaan imaado way ahayd laakiin dee adna waad ogeyn meeshaan u kacay laakiin idinkaa joogayoo uma malaynaya inay waxbaayihii ay jirtay marka tilmaamihii faraha badnaa ee qiimaha badnaa ee aynu ku soo wadnay waxaan doonaynaa ummadeenna caburinta ku jirtay cabdi baaruud ciyaarta iga dayaa aad baan ku salaamaya adiga walaashay Naciima abwaan qorana haday ku jirto magaceedaad meesha kusoo qorto waa idin salaamaya dhammaantiin marka mawduucayga hayga leexinin cabdi baaruud qaalina iga ahaada dhammaantiin waxa weeyaan marka waxaan si gaar ah ugu wajahanahay oo isoo kiciyay oo aan doonayaa inaan sixitaan iyo tilmaan ka sameeyo oo aan intaa ka badan dhowran karin dad igu qaali ah oo aniga agtayda runtii culays iyo miisaan oo afkaarta ku kala duwan ayaan arkayaa oo social media ku jira afkaarta lagu kala duwan yahay way jiraysaa intaynu noolahay waayo haddaynan afkaarta ku kala duwanaanaynin hal ruux baa laynaga dhigi lahaa waxaa laynoo ekaysiin lahaa Roodo Ibraahim oo kaliyeeta kulligii Roodo Ibraahim baa laydinka dhigi lahaa sababtaan Roodo Ibraahim u ahay adigu Maxamed Xasan u tahay Cabdullaahi Maxamuud u jiro Cali Faarax u jiro Cabdi Baaruud u jiro Qadra Cabdullaahi u jirto u kala midab duwanahay u kala dheernahay u kala gaabannahay u kala doqonsannahay u kala fariidsannahay waa inaynu ku kala duwanaan waxyaalo badan abtirka ugu kala duwanahay qof caruur badan walaalo u yihiin qof caruur badan dhalay qof uu iska joogo marka waxyaabahaas oo dhan baa laynagu midayn lahaa haddaynu isku afkaar noqon karayno marka sidaa daraaddeed inaynu kala afkaar duwanaana ceeb ma aha laakiin afkaarta aan ku kala duwannahay yaynaan isku dagaalin oo inaan isku caayin oo inaan ku kala fogaanin aan isugu soo dhawaano aan kala faa'iidaysano aan isu caqli celinno waxa inaga wada dhaxeeya ee mas'uuliyadda inaga wada saaran tahayna aan kulligeen inagoo ilaalinayno oo jecel inaga hayso sidan ay ku qurux badan tahay isnidhaahno wax badan baynu ka soo baranay kala qaybsanaan waxaynu gaadhnay aad iyo aad baan dhammaantiin idin salaamayaa walaalkay cabdi cali aad baan kuu salaamayaa si gaar ah waynu kala baadnay howlahan dee inaga isla lahayne waa inaynu kusoo wada noqono si midaysan insha allahu tacaala walaalkay khaliif marka waxaan leenahay meesha aynu isku dagaalayno aynu isku aflagaadaynayno aynu reer u ekaanayno waa inaynu han qaran soo bandhigno hanka qaranku ka duwan yahay qaabkaynu hadda u shaqaynayno han qaran baa inagu wada jira waan ogahay dhammaanteen la jeclaa inagu jirta xataa keeni qaldanaa keeni shalay cadawga garab siinayay keeni dadkiisa xasuuqayay maanta wuxuu qoomamu ku jiraa marka fursadda aynu haysano maanta inaga oo halkaa ka dhaqaaqayna yaynaan lumini qof kasta oo caqli leh wuu garanayaa ummadda waxa u wanaagsan caqli baynu wada leenahay meeshanaynu soo wada gallaa fursad baynu wada haysanaa yaynaan fursadda aynu haysano ku ciyaarin waxaan leeyahay waan soo gabagabeynayaa insha allahu tacaala laakiin taxana ayaan ka dhigi doonaa barnaamijkan waan ballaadhin doonaa waad soo qabsan doontaan hadduu ilaahay ka raali noqdo waxaan hadalkayga kusoo gabagabeynayaa oo aan doonayaa inaan iskortaago qof kasta oo meeshaas isticmaala waxaan tilmaanay inuu yahay qof dembigiisa la qorayo qof walba naftaada u baq barnaamijka noocan oo kaleeta keliyata kama hadli doono hadduu ilaahay yidhaahdo barnaamijkuda ballaadhan oo arrimaha bulshada dhammaanteed khuseeya ayaan bilaabi doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo inta aan ka awoodo waxaan jeclahay anigoo ah Roodo Ibraahim Cabdi Guray dhammaantiin intiina i daawanaysaa inaad cafidaan anna cafis baad iga wada tihiin sidaasoo kale waxaan jeclahay qof kasta oo social media ku jira oo mararka qaarkood khalad ka dhacay inaynu wada cafino si shakhsi ah qofku wuxuu u geystay inaad cafido si guudna inaynu u wada cafino waxaan jeclahay qof kasta oo social media ku jira oo dhalinyarada aan marka hore tilmaamay ah kumaysidiid maxaa tiri waa wada gab yelayn waa runta haddaad Roodo wada noqon lahayn waa wada gab yelayn فنان شيخ أبوان سياسي انت سين اسوق جرنا
marka hadalkayga waxaan rabaa inaan ku celiyo mar kale dhammaantiin aniga ee cafiya anigana dhammaantiin cafis baad iga tihiin waxaan idinka codsanayaa oon idinka baryayaa idinka tuugayaa dhammaantiin inaad qof walooba walaalkaaga aad magaciisa maalin un ku khaldantay cafis ka dalbato cafis inaad ka dalbato si guudna waxaan idinka codsaday dhammaanteen inaan cafino walaal kasta oo social mediaha intuu isbedelkani dhacay la isla yara jiiday mirqaankii inaynu wada cafino sidaa haddaynu samayno oo aynu ilaahay cabsidiisana aasaasi ka dhigno waxaa xaqiiqo ah oo aynu ilaahay uga baranay inaynu wax badan inoo hagaagayaan waxaa xaqiiqo ah jidka saxda ah inaynu ku hagaagayno jidka saxda ah markaynu ku hagaagnana waxaa xaqiiqo ah cadow kasta aynu leenahay inaynu ka guulaysanayno nolosha adduunka laynoo keenay waxay ahayd in aynu ilaahay ku caabudno waxaa la xidhiidha nolosheenna waxyaalo fara badan oo mararka qaarkood cibaadada inaga dalfinaya laakiin waa inaynu isqabanno waa inaynu isu caqli celinno waa inaynu qof kasta oo walaalkeena oo khaldama aynaan ku talax tegin waxaan rajaynayaa aniga oo ilaahay qalbigayga iyo carabkayga inuu iswaafajiyo ka baryaya horeyna aanan weligay iyo allah ee carab dalable aydan iiga baranin ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ina sugo ilaahay waxaan ka baryayaa waan weyse qabaa salaadii aan tukaday ee duhurka ayaan weysadeedii qabaa qalbigayga iyo carabkayga way iswaafaqsan yihiin wax innaba ha yaraatee ii dambeeyana ma jiro oon intaan idiin sheegay ahayn aad iyo aad baad ugu mahadsantiin inaad wada cafideen anigana cafis baad iga wada tihiin idinkuna iswada cafiya walaal kasta oo maalin maalmaha ka mid a isagoo oo walaal ama siyaasi ah ama madaxdeena ka mida difaacaya dad ku gafay aan wada cafino isaguna ha ka cafi dalba dhammaanta walaalaheen waxaan rajaynayaa inaynu furno dood cilmiyeedyo aynu ku kobcinayno garaadka dhallinyaradeenna waxaan rajaynayaa aqoon-yahankeenna iyo culimadeenna abwaanadeenna madaxdeenna dhaqanka madaxdeenna siyaasadda dhammaanteen innaga oo isku dan ah oo isu dhibrinayna oo ilaahay ka wada baqayna qof walba shaqada uu leeyahay in loo daayo shaqada uu leeyahay in loo madax banneeyo laakiin hareeraha aynu kula jirno oon la tirfactirno oon hawsha la fududayno oon wixii uu inooga baahan yahay ku kaalmayno madaxda intaa aan sheego dhan waa madaxdeennii culimadu waa madaxdeennii aniga dhinacayga qalbiyan qofka ugu sarreeya bulshadeenna waa qofka cilmiga leh waayo siyaasiyiintu cilmi haddayna lahayn odayga dhaqanku cilmi hadduuna cilmigaasi cilmi diineed iyo cilmi kale wuxuu dooni ha ahaado qofka cilmiga leh waa qofka ugu sarreeya bulshada waayo cilmigu waa waxa laynoogu keenay inaynu ku dhaqanno oynu nolosheenna ku maarayno oynu waddada ku qaadno marka dadkeenna culimada ah ee culimada diinta iyo culimadeenna kale aba waa inaan ixtiraamno gaar ahaan culimadeenna dadka Soomaaliyeed guud ahaan haddaynu nahay gef fara badan baynu ku sameynaa iyagu waa bashar way khaldamayaan markay khaldamaan sida aynu uga falcelinaa sax ma aha ma jeceli inaan sii galgala arrimo aanan ka hadli karin oo aniga waxyaabaha aadka ii quseeya aan ahay waxa ina wada quseeya wuu ina wada quseeya laakiin waxyaabaha inta badan aan jecelahay inaan ka hadlo anigu waxaan doonayaa inay noqdaan wax urursan oona ku talax tegin aniga laftarkayguna badweyn aana sii gelin runtii madaxdeen oo dhan inaan ixtiraamno ayaan jeclahay sidaan idiin sheegana barnaamijyada waan sii wadi doonaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin intaasaan kusoo koobi doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo waxaanan idinkaga tegi doonaa ilaahay cabsidiisa oo naftayda ugu horreysiinayo idinkana idin wada dardaarmayo qof walowba haddaad doonayso inuu ilaahay ku jeclaado haddaad doonayso inaad ehelu jannaha ka mid noqoto haddaad doonayso dunida intaad joogto inaad nolol raaxa leh oo qabow ku noolaato raaxada dadka qaarba siba u yaqaanaan anigu raaxada nolosha iyo macaanka nolosha uma aqaana lacag badan guryo dhaadheer uma aqaano waxyaalahaas oo dhan waxaan u aqaanaa inaan haysto wax igu filan oon cuno inaanan bini aadan gacanta hoos dhiganin ilaahayna aan ka cabsado ummadayda waxaan u qaban karana aan u qabto macaan intaasaan u aqaanaa nabadgelyo iyo xurriyadna aan haysto cadaaladna aan ku hoos noolahay anigu nolosha macaankeeda intaasaan u aqaanaa qof kastoo intaa igala midaysan iyo qof wixii kasii weyn doonayaba wuxuu ku gaadhi karaa ilaahay inuu ka cabsado isagu markaad adigu ilaahay ka baqdo ayaad dadka sixi kartaa tilmaami kartaa laakiin haddaan cabsida ilaahay meel iska soo dhigno oo shaydaan raacno oon tilmaamaha shayaadiinta raacno oon isku wada gefno oon isku xadgudubno oon maanta halkaa afka abur ka saydho oon reer hebel caayo oon hebel difaaco saacadda naftu iga baxaysa warmahayo halkaa haddaan soo fadhiisto anoo in adeerkay difaacaya ama hebel in adeerkay ku duulaya
oo gar iyo mar la'aan iska ordaya hadday naftu igaga baxdo ilaahay wuu awoodaa ilaahay inaguma dilo fursad baynu haysanaa qof kasta oo nool maanta fursad buu haystaa laakiin berri ma hubtid inaad fursadda helaysid ka faa'iidayso waqtigaaga ilaahay ka baqo falowba ummadda aan ka dayno waxyaabaha kala fogeynaya social media aynu ajada ka dhignay ha laga daayo waxaan ku siganay social media inaan ka baxo aniga iyo dad ila mid ah oo fara badan waxaan ku siganay inaan social media ka baxno laakiin anigu waxaan istusay intaan ka bixi lahaa caqligayga yar inaan ummadayda uga faa'iideeyo waxaa laga yaabaa inaan hal qof wax ka bedelo ama in ka badan waxaa laga yaabaa inaan ka nabad galo anu waxyaalo fara badan oo qalbigayga kusoo noqnoqon lahaa hal kalena waan idiin sheegayaa adduunka intaad ku nooshahay inaad quusato diinta islaamka ma ogola inaad wax ka quusato oo tiraahdo waxaa gacantan ka taagay oo inaan ama waxaa ka hadlo ama dadka inaan waxaa ka waaniyo ama inaan waxaa ka sheekeeyo ama inaan halgamo ama inaan sidaa noolaado ama inaan shaqaysto inaad ka qanacdo meel lagaga qancaa ma jirto inta xiskaagu joogo eed caafimaad qabto eed nooshahay horey baad u soconaysaa waxaad higsanaysaa hadafka aad leedahay eed nolosha ka leedahay ee ah aakhiradaada iyo adduunkaaga isku qoofalan ayaad higsanaysaa ma jirto meel ku hakinaysa oo aad istaagaysid ood ku quusanaysid oon ahayn meeshu ilaahay kugu talagalay sidaa daraaddeed waqtiga aad haysato dhan baad ka faa'iidaysan kartaa daqiiqad ka mida iyo saacad ka mida iyo maalin ka mida iyo maalmo ka mida iyo isbuuc ka mida ood ummadaada u faa'iidayso ood adiguna ajir heshid walwalka faraha badan horta ma isku aragteen haddii anigu dabeecadaha aan runtii aan isku arkay waxaa ka mida dad haddaan wax isku qabanno qofka aan wax isku qabanay ama dadka aan wax isku qabaneen iska hor nimid ma aha dad wax aan jirin oo ama wax laga sheegay rooda ama hebel wax laga sheegay kama hadlayo laakiin face to face annagoo qof wax isku qabanay haddaanu kala dheelmano oo aanan qofka waxaa isla xallinay oo aan ka heshin walwal bay igu tahay haddaan qof aan u cadhoodo matalan oo qof inta bini aadan baanahay waxaa laga yaabaa inaan qof si qaldan ba anigu ugu cadhoodo ama wax qaldan ka fahansanahay ama isagu sidaas oo kaleeto wejigiisu hadduu qofka iga soo horbaxo runtii culays bay igu tahay ilaa aan waxaa xaliyo culayskaasaa isaaraanaya haddaba soo doqonnimo maa culays inaan beernaba inaynu noqono kuwo ka shaqeeyaba oo subax markay soo toosaan u xadhka uruursada siday culays naftooda u saari lahayn walaashay nicime abwaan qorane waan kuu istaagay aad iyo aad baan kuu salaamayaa dadkan aadka u jeclahay baad ka mid tahay ee dhallinyarada ah ee waxbartay ee maskaxdooda furan tahay jecelahay inay ummadda wax badan uga faa'iideyn doonaan gabdho iyo wiilal fara badan oon aad u jeclahay baan arkayaa dhammaantiin magacyadiina ma soo qaadi karo waan idin salaamayaa marka soo doqonnimo ma aha inaad subax walba walbahaarkaagii beerto qof kasta sida aan anigu aan dareemayo inuu dareemayo unbay ila tahay markaad qof col tihiin oo kaleeto matalan aad qof culowdaan oo kaleeto ama ehelkaaga ama asxaabtaada ama dariskaaga aad isku fiicnaan jirteen xog badan kala hayseen waxa ugu yar ee ku galaya waxa weeyaan armuu horta markaad hadda culowdeen sarihu uu kaa hayay armuu fakiya wixii armuu sheega waa dad Soomaali baynu nahay dad hadal badan baynu nahay dad isxantaynu nahay dad wax iska wada sheegaynu nahay marka qofkii dariskaaga hay kugu dhawaa eed ama shaqo ahaydeen ama aad daris isla degan ahaydeen ama aad walaalo ahaydeen haddaad isku dhacdaan ood kala fogaataan dhaqankeenana aynu naqaano oo markaynu wax yar isku qabanaba aynu dagaalka ugu dambeeya isla galo walwalkaaga ugu yar wuxuu ahaanayaa qofkan xogta uu kaa hayay talo maxay ku dambeyn doontaa sidee buu ka yeeli doonaa haddaba walwalkaas intaad beeraysid subax walba oo waagu bariyo maad beertid beer wanaagsan oo aakhiradaadii adduunkaaga ku anfacda hadday jirto fikrad adiga kugu jirta haddaad leedahay aragti aad ummadda hawsheeda ku waardiyeynayso ood goldaloolooyinkeeda ku aragtid iyadoo caafimaad qabta maa tilmaantid adooni caayin ii gefin cirdigayga sharaftayda dadnimadayda dharkaan xidhnahay meeshaan deganahay inaan dheerahay adoon ka hadlin maa tilmaantid meesha aan iinta ka leeyahay si aan u saxo oon deedna hawshii aan hayay u bogto inta tabartayda soo caqli fiican maaha inaynu waagan baryaba beer xun beerano oon geed ciina beerano oon tiin iyo caraancar iyo qodax inagu jabta beerano soo kama wanaagsana geed macaan oon isku jeclaano inaynu beerano kol haddaynu safarnahay aynu meesha ka tegayno kol haddaynaan ogeyn xilliga aan ka tegayno kol haddaan la isiinayno fursad aan ku macasalaameeyo walaalahay oo aan ku idhaahda iyo cafiya oo aan ku idhaahda xaqaan idinka hayay hooye haddaan la isiinayn oo nafta goora iga baxaysa aanan garanayn soo ma habboona oo ilaahay caqliga garaadna isiiyey soo ma habboona inta tabartayda inaan isu soo jeedo oon dadaalo soo ma habboona mayla qaadateen
aad iyo aad baan idiin salaamayaa waan ku talax tagay waan ku dheeraaday runtii ma rabin inaan intaasoo dhan ku jiro live-ka waan soo gabagabeynayaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad aad baan idiin wada salaamayaa runtii waan u xiisay dad fara badan oo magacyadooda meeshan ku arko oo walaashay Faadumo qarandoon Soomaali baa soo gashay aad baan ku salaamayaa laascaanood iyo jawigeeda iiga waran Faadumo si gaar ah soo qaba insha Allah dhamaantiin waan idin wada salaamayaa walaalahay intaan magacooda sheegay iyo intaan magacooda sheeginba magacu uu ordaya idin ma wada arko waan jeclaan lahaa inaan qof kasta magaciisa ku salaamo iyo mansabkiisaba laakiin iima suurtagelayso barnaamijka intaasaan kusoo gabagabeynayaa ilaahay waxaan ka baryaynaa dhammaanteen inuu ina cafiyo dambiyadeena inuu dhaafo dunuubta waalidiinteena inuu dhaafo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu quluubteena isu soo dumo dad walaala ah baynu nahay qofka walaalkaa ah marnaba ma kala tegaysaan horta nimayow Soomaalida caqligeeda mararka qaarkood waxaan idhaahdaa fuuntuu noqday fuuntada ukunta fuuntada noqday asdaa waxaan la yaabay qof baad inta uu nool yahay afuufi muxuu yidhi abwaangaariye ilaahay naxariis janna ha siiye muxuu yidhi aasi og buu yidhi aasi ogta uu abwaangaariye sheegay meelo badan bay ka muuqataa waxaad arkaysaa qof aad intaad nooshahay oo dhan xadhkihiisa aad kala furayso oo ku xidhaba kala furayso oo xumaantiisa daydayayso oo wax ka sheegayso maanta hadduu wax ka dhaco haddana qofka ugu horeeya ama waxaad noqonaysaa booqda ama u tacsiyeeya ama soo salaamaad noqonaysaa waa arrintan la yaabo oo qofkan markuu fayow yahay ee isagu wax qabsanayo maad taageertid maad nabadgelisid maad ixtiraamtid maad talada fiican siisid marka uu hawl gab noqdo ama lug ka jabo ama shil gaari galo ama uu geeriyoodaba intaad u ducaynayso intaad alla qofkii allaha cafiya dhahayso intaad ilaahu qofkaas lugta ka jabo u kabdhahayso wuu xanuunsan yahay ilaahu caafi intaad dhahayso markuu caafimaad qabo xayiga yahay ee uu ama hoggaan inoo yahay wax inoo tarayo ama uu qof bulshada magac ku leeyahay markaas maad u ducaysid maad nabadgelisid maad dhibka ka daysid maad wanaagiisa tilmaantid maad wanaagiisa sheegtid xumaantiisa maad asturtid ceebtiisa maad asturtid meesha uu ka jilicsan yahay maad si qurux badan oo sharaf ku jirto oo ummadoo dhanna maangal oo dadka maskaxdooda galaysa ma u tilmaantid inta ban aasi og ahaanayna oo waxyaalahan la yaabo runtii aadka ula yaabo ka mid tahay waxyaabaha aan la yaabo waxaa ka mid ah hadda qurbaha intaan ku noolaa oo kale wadankan ku noolaa Australia laba magaalaan ka degay magaaladan eega ka imida Sydney Soomaalida degan waa Soomaali kuma reer Sydney aad baan wada salaamayaa reer Australia oo dhan wixii live ah iyo wixii daawan doonaba si gaar ah idin salaamayaa dhamaantiin aad baan idin ku xiisa runtii magaalada Sydney aan ku noolahay Soomaalida degan waa dad kooban oo is yaqaan runtii Soomaalinimaduna ay ku weyntoon aad u jecelahay hal ciladoo reer Australia waa ku sheegay un bay reer Australia lahaayeen dad sharaf badan oo qiimo badan oo Soomaalida qurbaha ka duwan weeyaan waxyaabaha aan la yaabay marka waxaa ka mid ah qof kasta oo dhibaato gaadho oo Sydney ku nool waagu markuu bari reer Sydney oo dhan Soomaalida way ka warhayaan haddayna booqan way u ducaynayaan waxaa laga yaabaa qofkaas markuu caadiga yahay ee uu waxba qabineen dhibaato ku dhicin inaan ama laga warhaynin ama dhibaatadiisu haddayna soo bixin oo ayna qarsooneen cidna unu culays badan ku haynin laakiin markay ay dhibaato ku dhacdo geeri shil aroos hadduu leeyahay waa loo gurmanayaa haddaba isbitaalada matalan qof xanuunsan oo Soomaaliya markuu magaalada Sydney oo kale Perth oo kale Melbourne oo kale Australia anu ku noolaa markuu xanuunsado qof Soomaaliya dadka isbitaalada ka shaqeeya way yaqaanaan Afrikaankan xanuunsan inuu Soomaaliya way yaqaanaan haddana caalamka oo dhan way yaqaanaan dhibaatada dadka Soomaaliya dhaxtaala su'aal marka waxaan hortaala aanan ka jawaabi karin aniga in badan baa la weydiiyay dad fara badan oo ajaanib ah oo si uu xiriir u yeelanay shaqo goobaha waxbarashada goobaha community-da aan ku kulanay su'aasha way weydiiyeen markaan isbitaalada tagno dadka Soomaalida ee bukaanka ah gabadha umusha taxanuunsan qofka shilka gala kulligiin waad u timaadaan taasi waxay ka turjumaysaa inaad tihiin dad isjecel inaad tihiin dad isku xidhan oo iska warhaya haddaba dhibka wadankiini jira idinka keenay muxuu yahay ilaan Soomaalidii oo dhan baad ka kooban tihiin gobolo kala degan baad kala duwan baad sheeganaysaa calaamaad kala wadataan haddana halkan waa isku jeceshiin waa su'aal aadan ka jawaabi karin su'aal aadan ka jawaabi karin weeye waxyaabaha marka kugu noqonaya wajiga waxay ka mid tahay runtii anigu wajiga waxay ugu noqon jiray marka waxaan uga socdaa waxaan ogahay oon hubaa dadka hadda qalbigayga ka sawiran
ilaan moogtahay marka laga hadlaya wax ee la rabo in dhib jira la xaliyo dadku dhibkaa ma wada wadaan marka dhaliil la sheegayo bulshadu dhaliil ma wada laha afraad weeye dad shakhsiyaada baa laga yaabaa inay hadda in qalbigay ka sawiran yihiin oo ay yihiin kuwa mashiinka daaraya waxyaabahan aan ka hadlayno hadday tahay qabyaalada hadday tahay waxyaabaha dib u dhacay nagu keenaya hadday tahay waxyaabaha faraha badan ee ugaanka kacaya shakhsiyaad baa laga yaabaa inay hadda aniga qalbigay ka sawiran yihiin shakhsiyaadkaasi waan hubaa shaqsiba shaqsiga kale dhibkiisa inuuna jeclay waan hubaa laakiin waxaa inaga maqan oo ina guran maskaxda oo qofka meesha aad u marinaysa waxa wanaagsan wadada aad u marinaysaa marar badan inaga khaldan hadalka kolba intaan soo gabagabeys idhahdaan ku noqonayaa in muddo aan waan aamusnaa oo social media waan ku yaraa gaar ahaan live-ka waan ka maqnaa muddo sanadiya waxa aadna waan u xiisanayaa muuqaaladiina qiimaha badan iyo dadkan aan magacyadooda halkan ka arko halkaasaan kusoo gabagabeynayaa mar kale cafis baad iga wada tihiin anigana cafis baan idinka wada dalbanayaa waxaan idinka codsanayaa idin inaad wada cafidaan shakhsiyaadka si gaara wax u kala gaadheen intay isbedelkani dhacayna inay iscafiyaan baan ka baryayaa sidaasay dan inoogu jirtaa waxaynu wax ku noqon karaa waxaynu dhibaatooyinka kaga bixi karaa waxaynu qof walba markaa toosto mobilkan aad la boodayso eed rabta inaad wax ogaato oo aad ama dhib dhacay wax dadka xalinaya ka mid noqoto ama aad soo bandhigta dhib jira waxaynu dawadiisa ku gaari karnaa cabsida ilaahay cabsidiisa ayaynu xal ku gaari karnaa markaynu ilaahay cabsidiisa xalkii aynu ku raadinana wadada aynu marayno way dhowdahay wada gaaban baynu maraynaa marka inagoo wada yaroo dhow oo gaaban oo halkan isu tilmaami kara oo fursadan haysana yaynaan wada dheer qalooca u soo marin qof walba walaalkaaga aad dhaliishiisa rabta inaad sheegto si ixtiraam iyo xushmad ku jirto oo caafimaad qabta ugu sheeg bahalkan qabiilka ee la sheegaya la isku cabsiinayaan horta waa hore idin waa wax laynagu buufinaye cabsidiisa aynu ka baxno si laab xeedhan aan isugu cadayno oo nagu badheerno intaasaan kusoo gabagabeynayaa ilaahay dhammaantan hayna saamaxo ilaahay ceebaheenna ha asturo dadka walaalaha ee muslimiinta inay ceebahooda isdaba galaan waa laga xarimay waa laga reebay qofka walaalka ceebihiisa laguma dirin ee astur baa lagu yiri inaguna hadda waxaynu maraynaa heer iska daa inaan asturnay ceeba aan abuurayno ceeba aan jirin aan samaynayno marka ceeb aan jirin qofkii sameeyo ogow maalinta qiyaamaha inaadan qaadi karin inay kaa dambayso maalin aadan doodaynin maalin aadan magaca qarsanaynin maalin aadan magac kale isticmaalaynin maalin aadan qajajajajac ku soconaynin inay kaa dambayso qof walba ogow wax kasta ood sheegtana nuxurka iyo natiijada kasoo baxda adigu inaad yeelanayso haddaad ummadda been ku dhex faafiso haddaad isku dir ku dhex faafiso haddaad qabyaalad ku dhex faafiso iyo wixii kasii xun eed ummadda ku dhex faafisaba maalinta qiyaamaha inaad adigu yeelanayso ogow marka intaan qiyaamuhu dhicin intaan nafta lagaa qaadin intaadan caafimaadka waayin intaadan hadalkan iyo carabkan qoyan waayin intaadan fursadan aad ka na'naa leedahay waayin istaba qabo qof walba istaba qabo ilaahay aan ka baqno ilaahay cabsidiisa wax lagu noqon karaa aan ka cabsano qof ma jiro qof adduunkan intuu kaga adkaaday uu ku fadhiistay meeshii uu ka dhaxlay qaatay ma jiro ilaa hadduu sameeyeyna qof hadduu jiro qof awoodiisa ku tagrifalay oo qof kaleeta inuu u dhammeeyo dhibaato gaadhsiiya meesha ugu sarraysa ka gaadhay hadduu jirana waa kii guul daraysta sababteeto qof haddaan maanta damca inaan dilo dil wuu ku xukunaa markii horeba dil buu ku xukunaa ilaa agtiisu dil kaga xukunaa marka qof dil ku xukunaa haddaan dila aniga unbaa isdilaya isaga waxa ma yeeli qof dil ku xukunaa haddaan damca waa waxa dhibka ugu dambeeyaad geysan karta waa inaad qof disho qof waxa kawdiisa inaad jarto weeye waxa ugu weyn ee dembi ah la galaa haddaba qof dil ku xukunaa haddaad disho ma adaa guulaysta mise waad guul daraysatay kolka horeba dil buu ku xukunaa soo maha ilaahay baa dili lahaa ma noolaadeen adu unbaa laakiin dambaabe marka yaynaan inaga oo wax fiican samayn karno waxun samaynin waxa xunayaan samaynayna aan isaga caqli celino waxyaala yaryar oo wax weyn ka dhigaynaa badan wixii baa ina kala fogeeyey xiisuhu inaga dhammaynayaa macaanku inaga dhammaynayaa macaanku inuu inaga dhammaadana waxay ka turjumaysaa inaynaan ahayn bulsho horumar doonaysa inay ka guurto meeshan ay joogto doonaysa inay ka faa'iidaysato fursadan qiimaha badan ay haysato bulsho doonaysa inaynaan ahayn baynu u ekaanaynaa waxaynu u ekaanaynaa bulsho aan fursadan ilaahay siiyey u qalmin baynu u ekaanaynaa waxaynu u ekaanaynaa bulsho aan u qalmin waqtiga adag ee loo soo huray
waqtiga adag ee dhiig iyo naf iyo maskax lagu bixiyey iyo maal bulsho aan u qalmin baynu ekaanaynaa aad iyo aad baan u salaamayaa mudane xuseen maxamed nuur baan arkayaa maasha allah tabaaraka allah ilaahay inuu ku nabadgeeyana waan ku mahadinaynaa nagu salaan wadankaa tagtay dhammaantiin aad baan idiin salaamayaa waan ka xumay runtii anigoo sii baxaya inaan dad qiimo badan oo soo galaya arkayo waxaan arkayaa halgame gafdiid waa dhalinyarada runtii aan jecelahay inaan waxyaabaha wanaagsan ay wadaan ku booriyo waxyaabaha ka qaldana mararka qaarkood aan ka tirfaxtiro dhalinyarada social media ku jirta qaar fara badan oo waxaa jirta runtii mudan in meesha ay taagan yihiin horey looga sii tilmaamaa mudan waayo qofku markuu isxilqaamo wuxuu ka fiican yahay qofka aan isxilqaamin marka aad iyo aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin barnaamijkan ka hadlayay wuxuu ahaa barnaamij aanan ciwaan u samaynin waayo tijaabi baan isidho marka waan ka noqon kari waayo waxaan isidhi haddaad ka noqotood ciwaanay wax qorqorto armuba iska kala kacaayo internetkii wax boodboodaa marka waxaan isidhi eegaad haysataaye ka faa'iidayso tusaalaha ugu yar waa marka waa intaas waxaan soo galay Facebook live ciwaan anoon qorin tijaabi baan isidhi inuu fiican yahay baan arkay waan kusii socday haddaba nolosha oo dhan waa intaasun qiimaha ay leedahay waa inaad fursadda yareed hesho uga faa'iidaysata dhinaca wanaagsan waa inaad inagoo is ixtiraamayna madaxdeena inagoo ixtiraamayna waxaanoo dhawaa wuxuu ilaahay addoonnimada uu ilaahay ina addoonsaday wax ka mida oo diin dhammaystiran oo kaamila oon meelna dhaafin laynoogu soo dejiyey weeye waxaan ka hadlayaa ma aha wax aniga ra'yigayga ah waayo waxa aan ka hadlayo oo dhan aayad qur-aanana ma daliilinayo axaadiisna ma sheegayo laakiin wax diinteenna macaan iyo asluubteeda iyo akhlaaqdeenna la xidhiidho umaan ka hadlayaa inta tabartayda wixii aan ka garanayo baan ka hadlayaa marka wax allaala waxa aynu samaynayno oo dhan waxay kusoo ururayaan biyo meel godan bay isugu yimaadaan waxay kusoo ururayaan nuxurka ah qofka ujeedada uu leeyahay haddaad tahay qof qarbudaad iyo ummadda inuu dhibaateeyo inuu xumaan kale ku kala dhexbeero inuu shaydaan ku noqdo qof doonaya qastigiisu haddaad tahayna waa la yaqaanaa kaa waddadu maro haddaad tahay qof wanaag doonaya oo doonaya ummaddiisu inay horumar gaadho oo meeshan ka baxdo cadaalad inay hesho sinaan inay hesho dowlad caadila inay hesho gobonnimo inay hesho calan gaara inay hesho qof doonaya haddaad tahay intaas tilmaamoodaan sheegay mid ka mid a iyo dhammaantood waxaa doonaysaba wanaag qof socda haddaad tahay waxaan garwaaqsanahay inaad khaldami karto waxaan garwaaqsanahay inuu hal ku seegi karo waxaan garwaaqsanahay ilduuf marar badan soo noqnoqda inuu dhici karo laakiin waa inaan isqabanno waa inaan isqabanno qofkeenna socda iyo keenna fadhiya waa inay isa soo gaadhaan qofka fadhiya ee arkaya meel mugdiya matalan fadhiya qof soconaya oo waxyaalaha khatarta aad u arag waa inuu tilmaami karay uu odhan karaya meesha qodxaa yaallay ka joog god baa meesha ku yaallay ka joog meesha wax khataraa ka jira ka joog haddii kale noloshu macna inooma samaynayso wax macnaa inooma samaynayso haddaadan wixii laguu abuuray xikmaddii ilaahay kuu keenayba haddaad garab marto ood marka ugu horreysa alla kacabsigii lumiso oo aad noqoto qof wuxuu doona samayn kara qof wuxuu doona samayn kara qofka muslimkii wuxuu doona ma samayn karo ilaahay qof ku xidhan oo iimaanlihii wuxuu doona ma samayn karo eega waxaynu doonaynu samaynaa inteenna ugu badan waxaan doona haddaan sameeyo waxaan ka turjumayaa markaa inaan waddo kala hayo oona waddadii ummadda danteeda iyo naftayda danteeda ahayd haynin runtii kolba intaan hadalka soo gabagabeeya waxa dib ii celinaya waxaan arkayaa waxaan isleeyahay marba meeshaana bal ereygaana ku dar ku sii dar fursad kale inaad heli ilaahay baa garanaya ilaahay nafta xun hadduu ii daayo oo caafimaadku ii daayo oo fursadan internetka inaad haysta aan sii haysto insha allahu tacaala barnaamijyo ayaan sidaan maanta u bilaabay inooga faa'iideyn doonaa dhammaantiin waxaan idinkaga tegayaa walaalahayow khayr fara badan allah idin siiyo dhammaantiin mudane xuseen qoraalkaaga ma arko aad iyo aad baan kuu salaamayaa waxaan rajaynayaa maasha allah aamiin aamiin mudane aamiin adigana ilaahay ha ku xifdiyo adiga iyo dadka la midka ah runtii inaad ummadda waxaad uga faa'iideynaysaan ee faraha badan aanu ka faa'iideysano waa muhiim dadka iyagoo dhalinyaro ah ku bilaabay danta ummadda inay ka shaqeeyaan cilmi ilaahay ugu daray caqli ilaahay ugu daray diin ilaahay ugu daray in la dhowro oo la xanaaneeyo oo laga faa'iideysta mudan ayaad ka mid tahay madaxda ilaahay nooga dhigay aad baan ilaahay ugu mahadinaynaa inuu dad fara badan ood ka mid tahay uu ka dhigay madaxda ummadda waxaan rajaynaynaa idinka laftirkiina madaxda ah qof kasta oo madaxda anigu aan aadka u ayidsanay ka mid oo sida madax xuseen oo kaleeto igala jooga maanta halkan iga daawanaya
dulqaadna inuu jiro duruufahan iyo xilligan adag ee lagu jiro iyo iska xagxagashada faraha badan waxyaabaha ay keenayaan inaad u dulqaadataan wanaagii aad idinkoo dhalinyara ummadda u bilowdeenna inaad sii wadaan ood sii laba laabtaan ayaan rajaynaynaa si gaaran waynu isula xidhiiri insha allah inteena dee isku hawsha haysa dhammaantiinna waxaan rajaynayaa inaad intaas maanta wixii idinkala quman aad ka qaadataan anigana ilaahay waxaan ka baryayaa in uu carabkayga iyo calooshayda uu iswaafajiyo wixii khaldan een ku hadlayna naftayda iyo shaydaan bay ka ahaatay wixii wanaag aheen ku hadlayna ilaahay baan ku mahadinayaa rabbi dhammaanteen hayna sugo runtii qofku hadduu sugnaado oo waxa uu aaminsan yahay qofku mabda uu ku sugnaado hadduu leeyahay xitaa dadka mabaadi'da khaldan aaminsan ee mabdi'iisu mabda ummadda danteeda ka turjumaya una ahayn laakiin ku sugan waxay ka fiican yihiin qof sheeganaya mabda sugan mabda wanaagsan oo toosan inuu aaminsan yahay haddana gebi dhaclaynaya waxaa ka wanaagsan qofka mabda'an ummadda u danaynaya aaminsanayn laakiin meel cad oo loogu soo hagaagale kaasaa ka wanaagsan intaasaan kusoo gabagabeynayaa dhammaantiin aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa waan ku faraxsanahay fursadan qiimaha badan ee ilaahay isiiyey magacyo aanu in muddo a kala maqnayn inaan halkan ku arkayo aad baan dhammaantiin idin wada salaamayaa igu sii salaama asxaabtii iyo ehelkii iyo jaaliyaadkii intiina gudaha ila joogtana sidoo kale waa idin salaamayaa waxaan arkayaa walaalka shaafi aadan waris aad baan ku salaamayaa shaafiyow maynaan isku soo noqonin isku soo warcelinaan isku ogeyn runtii dhammaantiin magacyadiina ma sheegi kara laakiin waan jeclaan lahaa inaan listi dheer idinka akhriyo oon qof walba magaciisa ku salaamo intaasaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka inoo sii tuura dadka kale sii gaadhsiiya khayrka aan isugu yeedhno waxa inagu filan ee ina anfacaya ee aynu kulligeen isku dhagaysan karraa waa waxa wanaagsan un baynu isku maqli karraa on wax ku sixi karraa waxa qaldan waynu isugu cadhoon waynu isku nici waynu isugu cuqdadoobi waynu isku wada indhahaynu faraa iska wada gelin waxa qaldan aynu tilmaamaha qaldan ku bixinayna aan iska dayno wanaagga aan wax isugu sheegno aynu qofka walaalkaa inuu ku dhagaysan kara isagoo kaa ra'yi duwan aynu ka shaqayno aad iyo aad baad mahadsantihiin intaasaan kusoo gabagabaynayaa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu